Komishinka doorashooyinka Somaliland ayaa ku dhawaaqay xilliga ay qabanayaan doorashooyinka iyo diiwaangelinta. Wariyaheena Cabdiraxmaan Ibrahim ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. Komishinka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ayaa maanta kulan albaabadu xiran la qaatay hoggaanka sare ee xisbiyada siyaasadda ee Somaliland. Intaasi kadibna waxa warbaahinta la hadlay isla markaana faahfaahisay qodobada lagu heshiiyay. Haltuun Xasan Cabdi oo ah xubin ka tirsan komishinka doorashooyinka ee Somaliland. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Komishinka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 730/2007 xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2/2005 waxa maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha 8 2020 komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishinka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraan degay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan. Wuxuu fadhiyo wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka. Jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyayaasha. Qaybta labaad qabsoomida diiwaangelinta codbixiyayaasha. Qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan. Jadwalkan waxa uu ku mudaysan yahay muddo 9 bilood ah waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa lafdhabar u ah dhamaystirka sharci iyo dhaqaale. Cabdiraxmaan Ibrahim, Telefishinka Somali Cable, Hargeysa.